عليكم أصحابتي سو دوالا إن الله يحيي هرت أصحابي بليز مقالك لايك صار في فيديوغا مeel fiican oo u gaar saaxiibada kale oo nagu cusub subscribe-kii nagu dhiirigeliya wixii raayeen qaybta comment-ga waan isku soo laabanay kulankii Liverpool iyo Tottenham ayaa hadda inoo soo dhawaaday Liverpool oo guul ay ku dhibaatooda ka qaadatay Tottenham iyo Manchester United oo guul dara aad u qararsan lagu soo gaarsiiyay Goodison Park maanta intee baxday Aston Villa Unai Emery aqoon umuusan lahayn oo maleena Erik ten Hag labadaas kulan ah hal u kala qaada dhigeena asxaabe please muuqaalka like saara si fiidow saaxiib wanaagsan oo u gaaro saaxiibada kale oo nagu cusub subscribe-kiina inagu dhiirigeliya meeshan waxa fariin harta ugu diraa saaxiibada ama walaalaha Manchester City fan-ka oo qaybta comment-ga igu soo dhahay marway waxaan aaminaynaa Arsenal inay horyaalkan qaadayso markay Man City garaacdo Arsenal shan naqaanay ma aha Arteta wiilashiisa oo isku aadistay wax walba ka filo maadaama haddana ay hogaamiyaasha yihiin horyaalka waa dhamaanteen reer Premier League inaan ka xishoodna Arsenal dhamaan congratulations dhaha qof Arsenal fan hala doodin okay intaas ana idin soo gudbiyay waxa ku hormareynaa kulankii Liverpool iyo Tottenham hadda noo soo dhamaaday وأكتين ليفربول حل عيارات كان كلهم بريمير ليج أوي أنت بحذي جول ميسن جارين عاوي كلهم يويلش سعاد وفرح سهين إذا ما أنت غيرياش ليفربول جوشس جول آد أمي سنة إهد هدنا عريري جول عريري إهد مدام إن أنتوني كانت شح والي أو كسر قلي أو سدح شن هل شح دفاع زائد أو كسر قلي ليفربول كما أيسن دباتونين ليفربول إن توتنهام دفاعي هذا شيء محمد صالح أيا لبى جول أو دق أكيد جول كي لبنا حقلت كيسلها نيكي إيريك دايا محمد صالح بكيله واي أبو بكيله واي محمد صالح دور كيس بروني دقيه وسوقي ميا قارب للي ما أقونيس والله جول كي لبنا نيكا سقلت كيسلها كي هرنا أسقى أي أسيست وسمي نيكي ها ضرب النونس لبى جول إبرة هافتام كل مرة ليفربول markii loo soo laabtay ciyaarta half time ka ilaahow naga dhamee rabbi iyo raxmaan oo naga dhamee ayaa imaaday Tottenham macalinka macnaa wuxuu sameeyay salsafad ciyaarta inuu bedelay Antonio Conte qaladkiisa oo wax ka ogaaday difaaciya laga soo baxay Kulusevski ayaa la keenay Kulusevski markii la keenay hal daqiiqo markuu ku jiray horow jidka wuxuu ugu galay ninkii ahaa Harry Kane oo gool dhaliyaha oo macnaha Tottenham Harry Kane dhamaantiin waa taqaaniinbo Liverpool halkii gool markii laga dhaliyaa u dambeysay ayaga dhan waxay galeen difaac Tottenham cir iyo dhul ayay ka soo weerartaan dhig karnaa Liverpool caawa guushan guul ay dheel iyo raaxo ay ku qaadatay ma ahan waxay ku qaateen awoodooda ku qaateen macnaha difaacooda cir iyo dhul ayaa laga soo weeraray alcamo Liverpool guul aad u muhiimsan ay gaareen maadaama ay lahaayeen 16 dhibcood kaliya ayna fadhiyeen kaalinta tobanaad ee horyaalka 11aad ee horyaalka Premier League hadda xoogaa waa soo dhawaadeen kaalinta 8aad ay joogan 16 dhibcood ay leeyihiin kooxaha Arsenal iyo Manchester City macnaha farqi dhibco badan u dhaxeeya laakiin Liverpool ciyaartoy badan oo intii ka koobka adduunka markii laga soo laabto waxa laga yaabaa ayagoo sidan ka awood badan in ay soo laabtaan hadda caawa qaybta hore hadii Luis Diaz uu joogi lahaa garabka Luis Diaz haduu joogi lahaa Tottenham afar waa la geeli lahaa hubaal Tottenham ayada naftirkeeda Son Mina ka maqnaa marka congratulations aad la yaray Liverpool saaxiibayaal meel buu aad joogtaan qaybta comment-ga idinka arka halkaas ugu gudbeena buuga Liverpool aan laabno waxaan oo soo qabataan Manchester United oo maanta 10 ama dib u dhac ku dhacay dib u dhici maantay oo ku dhacay Manchester United maxaa sabab u ah harta koob qaladkeeda waxa iska lahaa guuldaradii maanta soo gaartay first one macalinka Erik ten Hag oo qaladaad aad u badan kulankaas ka sameeyay saxda wax ka bedelay ciyaartooyda wax ka bedelay hogaamiyihii waayahanba ama bilahan aynu soo dhaafnay hogaaminaya Manchester United Bruno Fernandes next match ku maqnaa waxa kabtan ka ahaa maanta ciyaartaas Cristiano Ronaldo oo 90 daqiiqo kulanka uu dheelay 0 shot iyo 0 on target babaxay hal jaalana qaatay Manchester United 10 daqiiqo ugu horeysay Aston Villa waa ay ku soo faalashay laba gool ayaan laga dhaliyay oo waliba goolkii labaad oo Blizon oo ahaa macalinka qaladka uu sameeyay marka waxay ahayd reer Manchester oo macalinka qaladka uu sameeyay wuxuu ahaa wiilka daayarka oo Argentinianka ah iyo hal mar wuxuu ku soo wada bilaabay Van de Beek oo waayahanba ka ahaa Kate amba xidiga xatay hadii kulamada qaarkood 10 daqiiqo ugu horeysay 80ka 60ka hadaa keeni jirtay xatay hadaa keentid kulan ku soo bilaad wax ay ma aha macalinka marka xidig oo aday ilaa iyo bil laba bil oo mar walba keedka ka ahaa oo xatay aan 20 daqiiqo
10 daqiiqo aan ka dheelsiinay inaa hal mar kulan aan jiito u baahan tahay oo top 4 ka ku xiran yahay oo Chelsea maanta la garaacay oo aad gali kartid in aad ku soo bilaabato qaadkeeda leedahay malaha uu dhayrsada ila tahay Aston Villa kulanka ka hore Aston Villa muusan daawarin oo u maleynaya macalinka Ten Hag because Aston Villa 4 gool ever isbuuc hore waxa ku soo dhafatay Newcastle oo kaalinta saddexaad ee horyaalka Premier League joogtay xilli ciyaareedkan Nuno Tavares iyo waxaan ku yiri wax laga qaban karo malaha Newcastle kooxo waaweyn oo Big Six-ka ee sida Tottenham, Man United iyo Chelsea iyo kooxo badan ee dhaanta Tottenham, Brighton, Hove Albion waad ogtihiin macalinkoodii laga soo qaato Chelsea la keenay ayadaaba meel sare joogtaba Chelsea meesha ay joogto waa ogtiin marka xaaladda way ku xumeed Aston Villa gurigeeda Villa Park ay joogtay Manchester ceeba maanta ku dhacday 95tii ugu dambeysay Villa Park in looga soo badiyo waxaasna waxa uu masuulka ee macalinka soo laabashadii inta half time kala gaarin ba Lucas Shaw gool u dhaliyay saas markii loo soo laabtay goolkii saddexaad laga dhaliyay Man United dib waa ay ka soo laabo weysay bedel ayuu sameeyay macalinka inuu waaleeyahay inuu fiyo waa kala saar la macalinka Manchester United because asaga oo heli karo ninkii ahaa ishak number 9kii oo Manchester United asagoo heli karo ma dheelsiisan ciyaarta halka dambe ku keenay Martial Scott McTominay asoo qadka dhexe u dheeli karo keenay Casemiro waa xidig aad u culus gadaal inaa ka keystay marka gool leedahay kala kugu fiican adiga gool danadan waa idin ku dhacday reer Manchester United inaa ka soo kabatiin idin rajeena laakiin si tan oo kale wax loo dul qaadan karo ma hada Chelsea waa la garaacay inaa top 4 ka gashin ee ahayd maanta oo gool aad gaartiin laakiin Aston Villa iska miidin jirin macalinkii hore Arsenal Unai Emery iska miidin jirin marka tan waa idin ku dhacday Liverpool waxa idin la hambalyo Arsenal adiga waxa tiin anta table hogaamiyaasha horyaalka tiin waa in idin ka aamusa marka haleysiin oo soo idin fiiriyaa waaye congratulations idin la dhamaantiin saaxiibayaal aad u mahadsantihiin ilaa dhamaadka hadana la soo gaarteen muuqaalka like saara saaxiibada nagu cusub subscribe-kii nagu dhiirigeliya comment qurux badan oo sida idinkoo kalena qaybta hoose noogu reebo wassalaamu calaykum waraxmatullaah